tan labaad risaalada labaadoon dirayna waxaa weeye nebi maxamed oo la aflagaadeeyey oo haweenay soomaaliya aflagaadaysay oo la yidhi ameerikay degan tahay way iswaashaa baa la yidhi laakiin ma waalna ma yeelayno nebiga cirdigiisa calayhi salaatu wasalaam in loo gafo oo aanu ka aamusno ma yeelayno gaaladii kale cadcadayd baa ku dhici weyday kufaar yaroo madow oo qaxootiya ka yeeli mayno waxaa daraad lagu dilay bakistan nin nebiga aflagaadeeye calayhi salaatu wasalaam waa difaacaynaa nebiga nin kastoo muslimana waa arrin saaran wey inuu difaaca nebiga cirdiga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u taagannahay allah baa mahadsan subxaanahu wa tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar nebiga waa in la difaaco weeye cirdigiisa iyo sharaftiisa shiikh walaa shariif walaa mid caaqila walaa mid waalan nina ka yeeli mayno nebiga inuu caayo calayhi salaatu wasalaam ilaa macduur haweeneydaasi macduur ma ahan looguma cudur daarayo inay waalan tahay magaceeda ma xasuusta wuxuu ahaa laakiin malyuun baa la yidhaha malyuun nebi maxamed bay aflagaadaysay calayhi salaatu wasalaam markaasaa qaar ka mida dimuqraadiyiintiina u doodayaan waxaan leenahay dadka garanaya oo la xisaabtami karow ugu yeeraa tawba ilallahi iyo inay ka toobad keento edebdarrada iyo aflagaadada haddii kale qaar badan oo nebiga aflagaadeeyey ayaa hoos loo diray wa masiiruhum unnaar waxaan xasuusinayaa kuwii hollanda joogay kuwii faranse joogay kuwii soomaaliya joogay kuwa bakistan iyo indiya joogay ee nebiga aflagaadeeyey xaggee bay aadeen ka warrama haweeney qaxootiya oo degan ameerika bartankiisa inay nebiga caydo calayhi salaatu wasalaam mana waalna sida naloo sheegay ma waalna ma yeelayno waa in laga digaa lagana hortagaa kuwo kale oo culumaha nebiga u gafay wallahi ka yeeli mayno calayhi salaatu wasalaam cirdiga nebiga qofna laga yeeli maayo inuu caayo aflagaadeeyo dacwada tawxiidkaan wadaynaa shirkigana waa la dagaalamaynaa jazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam